waxbarashada niyad ayaan leeyahay madaxda dalka inaan noqdo ayaan rabaa iftiinka soo baxay ayaan ahay anigoo yariisahay waalidiinteed dhinteen oo saqiir ah waxaa gacantayga soo qabteen jamciyad Suyida iyo Hormuud Salaam Foundation haddaan Hormuud la heli lahayn anaga hawo ma yeelan lahayn waxaa ilaa heerka ay soo gaarsiisay oo lacagta iskoolkayga bixisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyadoo soo marsiinaysa jamciyad Suyida foundation waxaa la yiraahdaa Suyida la yiraahdaa waxay ka shaqeysaa dadka la ibsooco ay aruurisaa oo aniga ku matala siyaasadda waxay suuro gelisay ilaa 1,113 inay iskuul tagaan oo weligood iskuul tagin waxay suuro gelisay in jaamacado dibadda loo diro waxaan ma qabno ilmaha saaco ay mulo badnaay qolkaas la ii geeyay alxamdulillah shukri hooyaday bisa joogto iyadana maareyso qoyskeena iyada wax noo qabato waxbarashadeena oo ilmaha aan kula murgoysnayno macnaha wax idinka dhiibay iyo aan dhehayno oo hadda murugtu weyn deesay wax weyn oo bartaan ma sha Allah kulli waxbarashadooda murug nagu hayso anaga ilmaha zabka wala cararna waxbarashada laakiin waa murug la'ana afaraad ilaa form 1 haajiri aan qofka oo gal kaalinta koowaad waxyaabaha niyadda ku yeeshay waxa kamid ah gacanta weyn ay Hormuud la siisay ilaa ajra ka siiyo in si aan ugu dhiiranay oo u sheegno dhaxnay waa kana dad Soomaaliyeed taageerayo dad Soomaaliyeed diyaar diin ah ma sha Allah Hormuud anaga codsi aan u qoranay inaan nahay dad masaakiin oo awoodin in ardaydan tirada badan leh ee ka wada bixin kara iskuulka codsiga way naga aqbaleen waxayna nooga aqbaleen inay 100 arday kafaalo qaadaan 100 markay baxaan haddana tiim kale tan qornaa 100 kale oo diyaarina wageena markaas sidooda u baxshaan ujeedada laga leeyahay in laga bixiyo 100 arday waxbarashada waa qayb kamid ah howlihii aan u hayno bulshada si ay u soo baxaan arday aqoon leh dhaqankooda fiican yahay qoysaskooda mustaqbalka wax tari kara ayagana wax istari kara Hormuud Soomaali way deeqday waxaan leenahay Ilaahay barakeeyo waa garab taaganahay oo ku faraxsanahay jazaakumullahu khayran